صفتين وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو ترتمي وتا كوحو صفتين وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو هردمي كي نلا جوجا صاحبada isboortiga ciyaartoydii hore ee caanka ku ahayd kubadda cagta intaba waan salaamayaa hadal badan oran maayo ilaa shalay baan hadlayay runtii garoonkani wuxuu kaga duwayay garoomada kale baan anigu isweydiiyaa ilaa maalintii la bilaabay ilaa maalintu dhamaadayna maalin walba waan joogay oo waan kormeeray waan daawanayay waxbaan ka talada wax ku lahaa wuxuu kaga duwan yahay wuxuu ku yaalaa xudunta isboortiga Somaliland waliba halbowlaheedii buu ku yaalaa oo qof walba oo caasimadda degan uu iman karo kuna ciyaari karo garoonka taasi uu kaga duwan yahay runtii garoomada wuxuu kaloo faa'iido u sii leeyahay dhalinyarada xaafadda iyo inta ka dhow dhalinyarada xaafadda iyo inta ku dhow oo baahi weyn u qabtay goob dhow oo ay ku ciyaaraan halka ay transport ku bixin jireen inay meel fog tagaan waxaan mahad gaar ah u celinayaa ragga mulkiilayaasha ah ee abaabulay garoonkan Kofenda iyo inanka kale Naasir oo aad iyo aad ay u mahadsanyihiin inay fakarka xaafadda dhexdeeda la yimaadaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxa farxad noo ah ka wasaarad ahaan in maanta garoon niman dhalinyaro ah oo bahda isboortiga ah Maxamuud Cabdi Xasan iyo Naasir Xuseen Cabdillaahi inay halkan garoonkan qiimaha la ka furaan xudunta degmada Axmed Dhagax oo ku abtirsatay isboortiga garoonkan wuxuu soo celinayaa rajada dhalinyarada waayo shaqo abuur baa ka bilaabmaya waxa ka bilaabmaya inay dhalinyaradu ku soo hirtaan dhalinyarada aadoodii oo garoonka gacanta ku haysa iyaguna ay keenaan horumar ay ku sameeyaan isboortigooda waxaan leeyahay dhalinyarada ku ciyaari doonta garoonku wuxuu ku yaalaa meel santara garsoorkiisa waa u diyaar qalabkiisa oo dhan waa u diyaar inay ilaaliyaan akhlaaqda isboortiga iyo ciyaaruhu ay leeyihiin oo ay soo haneeyaan dhalinyarada halkan isugu timaada marka la kala badiyo waayo xaafadda waxay ku abtirsataa ciyaaraha gaar ahaan kubadda cagta iyo orodada labadaaba magac wasiirada ka soo qayb galay xafladda waaxda isboortiga xogeyaha dowladda hoose caasimadda Hargeysa iyo marti sharafta dhammaan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxaa ammaan mudan dhalinyarta isku dibariday goobtan aynu maanta fadhino oo ah goob taariikhi ah oo ka banaanayd booska degmada Axmed Dhagax iyo dhammaan degmooyinka kale ku hareersan maadaama ay tahay meel santar ah oo caasimadda dhexdeediia inay mudan tahay in laga sameeyo dhalinyartaa samaysana aad bay u mahadsan yihiin in la dhiirigeliyana waa shay aad u muhiima الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين ما هذا ما أنت إلهي بقى إسكالين إلهي اللي هو كل مية قومتا عافماتك إيو نرشادك وكم وغضو إلهي اللي هو كل مية نقول نبدا oo ku soo ururay garoonkan maanta aynu doonayno inaynu ku dhisno dhalinyaradeenna oo aynu kaga hortagno mukhaadaraadka caajiska xanta iyo beenta meeraysiga kooxaysiga isdilka carruurta is-ereerinayso moobil boobka waxaasoo dhan waxaynu ugu talagalay inaynu garoonkan kaga hortagno inaynu carruurteenna jirkooda ku dhisno caqligoodana ku dhisno ciyaaruhu
waa ogtiinoo waxay sameeyaan kalgacal saaxiibtinimo halkan baad ka tegaysaa gobolkanaad ciyaar u tegaysaa nabadda iyo nabadgelyada ay nagu sumay inaan siiyey waxaa halkan si gaar ah ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hormuudka oo ah horumarta iyo fikirka dhalinyaradu ay abaabulayso waxaan u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta kala duwan ee xafladan sharafta badan ka soo qayb galay oo ugu horeeyay wasiirada maayarka Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis hotelka xogayaha dawladda hoose xildhibaan Muwarig wasiir Liibaan wasiir Khadar dhamaantood iyo siyaasiyiinta kale team baraka mid yahay odayaal Suudi dhamaantood waan idin salaamayaa ilaahay baanu mahadle waana idinka mahadnaqaynaa waqtigiina qaaliga ee soo siiseen runtii garoonkan markii aan sameeynay waxaan u sameeynay ma ahayn ujeedo dhaqaale inaan ka helno waxaan ahayd maadaama aanu ku jirnay fiilka sportiska aragnayna baahi inay jirto dhalinyaradii tahriibka iyo balwadaha iyo saamaleelka ay ku badatay maadaama ay yaraadeen garoomadii lagu ciyaarayay inaan u sameeyno fikrad ah in dadku ay qaad ka jeestaan ay isdhex galaan garoonkana looma sameeynin xaafad qura Soomaaliland dhan baan u sameeynay dhalinyarada ku kulmaan ku wada ciyaaraan maadaama uu sportiga ka sii baxana waxaan ugu talagalnay dhalinyarada inaan u faa'iideyno oo aanu tusno isdhexgalka iyo faa'iidada ay leeyihiin waxaan mar kale u mahadnaqayaa oo iyana meesha ku jirta runtii in dhalinyaradu ay fahmaan inay wax isku darsan karaan ay waskaashi samaysan karaan oo iyagu ay abuuri karaan shaqo iyo fikrado hirgala runtii waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dawladda hoose oo runtii maayarka iyo xogayaha iyo golaheedu naga caawiyeen xitaa cagafyadii meesha noo garaacay rubleydii noo garaacaysay oo maayarka iyo xogayuhu noogu deeqeen aad bay ugu mahadsan yihiin runtii waana ugu mahadnaqaynaa aadna way ugu mahadsan yihiin waqtigooda qaaligeena siiyeen waxaan ka rajeynayaa insha Allah waxa ka badan ay qabteen waxa kaloo iyana mahadnaq gaar ah ugu diraya dawladda hoose maadaama ay wadadaas oo anaga halbulan oo ahayd caasimadana oo ahayd oo garoonka furitaankiisa wadadaasina isku soo beegmeen anaga farxad gaar ah noo tahay dhalinyarada u tahay caasimada u tahay manaha wada reer Axmed Dagax leeyihiin oo wada Soomaaliland leedahay caasimaduna leedahay ilaahayna waan ugu rajeynayaa inay inta ka badan qabtaan waqtigana u barakeeyo dhalinyarada ka soo qayb gashay xafladan timidna ilaahay idinkana abaalkiina idinka siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤوليتك الدنيا كان سقوط بيت لو سيرده مايرك عاصمته odayaasha iyo siyaasiyiinta dhalinyarta bahda saxaafadda maalgeliyaasha garoonkan iyo wasaaradda isboortiga waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galna xafladan garoonkan cusub ee la furayo kaas oo wax weyn ka tari doona ama wax weyn u tari doona dhalinyarta caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan isboortiga runtii dhalinyartu waxa weeye dadka u soo kacaya dalkan ee loo baahan yahay in lagu jiheeyo waxa wanaagsan halka tahriib iyo darooga iyo waxyaalo kale oo fara badan ay ka isticmaalayaan waxa qurux badan inay nashaadkan iyo isboortiga ay baahan lagu jiheeyaa ka qurux badan garoonkana wax weyn ayuu u soo kordhinayaa dhalinyarta deegaankan iyo deegaamada kale Hargeysaba baryaha dambe waxaa soo kordhiyay garoomada noocan waxaa muuqata in uu korokac jiro xagga dardargelinta isboortiga runtii xaafadan oo ahayd ama deegaankan oo ah deegaanka isboortiga uu ku yaallo garoonkii ugu weynaa magaalada Hargeysa Stadium dowladda hoose ahaan isagoo maayarkaygu joogo kale ka hadli doona runtii anagu waanu taageeraynaa had iyo jeer wixii aanu kaalmo ayaanu siin karayna dhalinyarta ama kan ha noqoto ama kuwa kale ha noqotee runtii waanu ku dadaalaynaa haddii aan kolley hadalka sii badin maayo dee dad badan baa jooga waxaa maanta laakiin aad farxad u siiya garoonkani goobtuu ka furmay iyo xilliguu furmay halkaa waxaa maraysaa waddo weyn oo halbowlaah oo isku xidha jaamacadda Hargeysa taadna dhaktarka total October half London Sinai iyo biibsiga waddadaasi shalay u meehir gashay kolley dhalinyartani nasiib ayay u heleen in maantana garoonkii waddadii samaysan ay la yimaadeen ay ku horumarinayaan xaafadda iyo isboortiska aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waanaanu la garab taaganahay wixii hiil iyo hooba nagaga aadan dhalinyaradana waxaan u soo jeedinayaa inay garoonka bilicdiisa ilaaliyaan kastamar fiicanna u noqdaan dhalinyarada la timid hal abuurka maanta aynu fadhino
intaa waxaa ii raaca maadaama aanu nahay siyaasiyiintii ka soo jeeday deegaanka kelmad baanu raacsanaynaayo maadaama ay doorashooyin nagu soo fool leeyihiin dhallinyaraduna ay qayb laxaadle ka yihiin waxaanu kula dardaarmayaa dhallinyarada xaafadda axmed dhagax iyo dhallinyarada guud ahaan jamhuuriyadda somalilan inay si nabadgelyo leh ay uga qayb qaataan doorashooyinka waddanka ka dhacaya 3 musharax oo reer somalilan ah tartamaya madaxweynenimo ku tartamaya oo horumarka waddanka iyo hogaaminta waddanka ku tartamaya waa 3 musharax oo somalilan oo xaq u leh waxaan ka codsanaynaa dhalinyaradu inay caadifada iska ilaaliyaan somalilan oo doorashooyin xor iyo xalaali ka dhacaan oo nabadgelyo ku dhacaa oo kale goobtan oo kale ka soo qayb qaadano oo ah garoon dhalinyarteena lagu tababarayo oo ciyaartay weyn iyo hore ee kubadda ka sii fariisanaya ay sameeyeen waa sumcad weyn waayo waxay bari doonaan professionalkooda ciyaalka kale ay siin doonaan waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin waxa muuqataa ahmiyadda ay leeyihiin garoomadu halkan qalba laga dumiyay oo dhismihiisa ka sii muuqda taasina waxa weeye ahmiyadda ay leedahay sportsku run ahaantii kubadda cagta aniga iskumanaan wanaagsaneen basketkii waxaan halkan fariin uga dirayaa ragii badnaa basketball laga iska hayo intooda badan dibadda ku maqan tahay iyaguna inay soo maal gashadaan garoomo basket si kubadda badan oo aynu hibo u leenahay aynu ugu baranno waxaan leeyahay dhalinyartana tiim bagaalka ka kaftamay caadifiyadda kubadda ayuunbaa leh in la isqabqabsado waxaan leeyahay laagsa caadifiyadda la inaga daayo si positive ha la isu taageero si fiicanna ha loo kala badiyo sida siyaasadaba loogu kala badiyay xalay doodii ay ka si fiican uga muuqatay in musharaxiinta ninka u eeg ninka madaxweyne noqonaya xalay u muuqday waxaan leeyahay dhalinyarta taageeradiina si xisbiga kulmiye aad baa u mahadsantihiin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن قرأ وزير ليبان وحيانا كفر يوم آيركا تيم برا سعودي عيدين حقيا إن لبدا عيارتوي هلك المال كشدي بعد عيارتوي أما أو يا إن أقسمها واحدة عيارها وإحنا يا شعب كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا فرحان ورتقاريا هل كان ماشي عن كل شيء وعن أجرتا وحكاية 20 متر إن ما تلاقت فرا قرار نقول عياره كدي مركي قرامات نقول عيار جرا ومركان وأنا ويا صفتين وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو ترتمي وتا كوحو صفتين وتا